kani waa maalqabeen iyo hoggaamiye la fahantiisu iskale guud ahaan hantida guud ee dowladda North Korea Kim Jong Un waa mid ka mid ah kaligi taliyayaasha adduunka ugu caansan ka oo hoggaamiye dal ku hubaysan quwadda nukliyeerka 2012 ayuu daayirkani la wareegay hoggaanka dalkan goortaas oo uu geeriyooday aabihiis waxaana uu hoggaamintiisa tirdhaxaad uga dhigay gacan bir ah oo uu ku maamulay dalkan ninkani waxa uu dalkan hanti wadaaga ku hoggaamiyay si qarsoon si taas la mid ah noloshiisa wax badan lagama oga xitaa maalintiisa dhalashada ayaan la ogeyn oo daadiisa waxa lagu qiyaasaa 37 ilaa 38 jir hase yeeshee muuqan uga hadlamayno taariikh nololeedkiisa oo idil waxaynu kaliya diiradda ku saareynaa bandhiga 8 waxyaabood oo ku khaas ah noloshiisa xaddiga lacagta uu kharash gareeyo sanadkii guud ahaan wax soo saarka lacageed ee dalkani ninkan gacantiisa ayuu ku jiraa taasoo sahlaysa inuu kharash gareeyo intii uu doono sanadkii Kim Jong Un waxa uu sanadkii noloshiisa iyo tan qoyskiisa ku dabiraa lacag lagu qiyaasay 600 milyan oo dollar lacagtaasi oo ka turjumaysa hab nololeedka sare ee isaga iyo qoyskiisu uga nool yihiin dalkan dhaqaale ahaan fakhriga ah taageeradiisa kubadda kolayga yaraantiisii maruu ku jiray school boarding ah oo ku yaal dalka Switzerland halka oo sidoo kale hooyadiis ugu xanuunsanaysay cudurka kansarka ayuu fursad u helay inuu la qabsado ciyaaraha sida weyn looga tixgeliyo galbeedka ee kubadda kolayga iyo iskiinka ciyaarta loo yaqaano ay ugu horeeyaan waxaana jacaylka uu u qaaday tartamadan ciyaareed sababeen inuu cilaaqaad la yeesho ciyaartooy waaweyn oo kubadda kolayga kuwaas oo ay ka mid yihiin Michael Jordan iyo Dennis Rodman ayay saaxiib khaas yihiin waxaana uu socdaa 2 maalmood mar ugu tagay Kim gudaha dalka North Korea waxaana ciyaartooygaas haatan howlgabka ahi noqday Ameerikaankii ugu horeeyay ee la kulmay ninkan kaas oo hoggaamiyaha Kuuriyana ku qaabilay soo dhaweyn heer sare ah hantida uu haysto inkastoo aan dhab loo ogeyn dhaqaalaha ninkani gaarka u leeyahay haddana wariyayaal iyo cilmi baarayaal qiimeyn ku sameeyay hantida uu lahaan karo ayaa raasumaalkiisa ku qiimeeyay 8 ilaa 10 bilyan oo dollar hantidani waxay guud ahaan ka soo gashay wax soo saarka dalkiisa ka ganacsiga sharci darrada ah ee foolka maroodiga iyo beecinta khamrada sida warbixino khaas ah tilmaameen xariga uu u geystay walaalkiis Kim Jong Un waa yaraanka walaalihiis wiil iyo gabar ayaana kor uga weyn isaga wiilku waa Kim Jong Nam ka oo loo arkayay inuu talada ka dhaxli karo aabihiis balse taas ku fashilmay kadib markii uu baasaboor been abuura ku tagay Tokyo socdaalkaasi oo shaki geliyay daacadnimadiisa taa ayaana sababtay in walaalkiisu fursad u helo inuu aabihiis talada ka dhaxlo hase yeeshee waxa walaalkiis lagu xiray gudaha North Korea 2017 taas oo lagu eedeeyay in isagu ka dambeeyay suuligii uu la safray dalka Singapore dhacdo adduunka ka yaabisay ayay ahayd maqalka suuliga la qaadan karo ee Kim Jong Un ula safray dalka Singapore halka oo 2018 kulan taariikhi ah kula lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump suuligaasi cunto iyo agabyo kale oo xabadda celiya ayuu Kim dalkiisa hore uga sii qaatay kolkii uu u safrayay dalkaasi Kim Jong Un ma jiro dal uu amnigiisa ku aamino oo aan ka ahayn dalka China ee uu xulufada dhow la yahay halka uu ku nool yahay wuxuu qoyskiisa kula nool yahay qasriga dalka looga taliyo halka oo ah hoyga saldanada qoyskiisu dhaxalkeeda iska leeyihiin ee North Korea saddexdiisa caruurta iyo xaaskiisa ayuuna halkaasi kula nool yahay qasrigan waxa loogu yeeraa guriga xafladaha iyo raaxada waxaana uu ku yaal buur dusheed gudaha magaalada Pyongyang waana dhisme aad loo qurxiyay ka oo gudihiisa lagu camiray beero cajiib ah gawaari qaali ah iyo jidad heer sare ah jarriinkiisa timaha qaabka uu tintiisa u jaro waa caado soo jireen ah oo lagu yaqaan hoggaanka dalkan sidoo kale waxa jira sharci khasbaya in guud ahaan ardayda ragga ah ee dalkaasi ay u jartaan sida hoggaamiyaha hadday xeerkaasi jabiyaanna ay la kulmi karaan ciqaab adag habjarriinka Kim inkastoo meelo badan oo adduunka ah looga jarto haddana kiisa waxa gudaha dalkaasi looga yaqaanaa himilo taa oo ka dhigan inay ka turjumayso hankiisa qofnimo 130 dhakhtar ee qaabilsan caafimaadkiisa ninkani waxa uu shaqaalaysiiyay 130 dhakhtar oo ka shaqeeya caafimaad qabkiisa kaliya waa arrin la yaab leh shaqada ay hal qof caafimaadkiisa ka wada qabtaan intaas oo dhakhtar hase yeeshee Kim waxa uu dhakhaatiirtan u dirsaday inay caafimaadkiisa ilaalo ka hayaan